habeen hore madaxweynaha Soomaaliya oo jeediyay khudbadiisii ugu horeysay kadib weerarkii Hotel Xayaat ayaa la wadaagay ummadda in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay dabargoynta Al-Shabaab. Muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa khudbadda, waxaana kaga hadli doonaa xeeladaha loo adeegsan karo ciribtirka Al-Shabaab. Asxaabta ku soo dhawaada abitay oo ha iloobina inaad subscribe iyo share gareysaan iyo inaad saartaan like. Inkasta oo khudbadu ay ahayd mid aad u gaaban oo u muuqatay mid aan horey loo qorin ama loo tafatirin, laakiin waxaan ka dareemi karnaa hadalka madaxweynaha Xasan iyo wejigiisa murugo iyo daal. Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal lagu weeraray Hotel Xayaat ee ku yaala Muqdisho. Dagaalkaas oo socday in ka badan 24 saac. Waxaa mas'uuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, ayna ku dhaawacmeen 117 qof, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya. Hadalka madaxweynaha wuxuu ku wareegayaa 2 qodob. Qodobka koowaad ayaa ah in uu shacabka ka codsaday in dowladda laga caawiyo la dagaalanka Al-Shabaab. Wuxuuna yidhi: shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireeyaal daahsoon oo u taagan fashilinta dhagarta kooxaha argagixisada ah. Qodobka labaad wuxuu ku dhawaaqay in dowladdu ay la dagaalami doonto Al-Shabaab. Asagoo sidaan yidhi: dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab la soo gabagabeeyo. Waanu maqalnay 2 qodob marar badan laga soo bilaabo markii Al-Shabaab la aas-aasay 15 sano ka hor, oo dowlad kasta oo cusub waxay sheegeen inay soo afjari doonaan Al-Shabaab, balse ilaa maanta kooxdan ayaa weli ku xoogan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya oo ay xitaa canshuur ka qaadaan shacabka Muqdisho iyo magaalooyin kale. Haddaba shaki ayaa ku jira rajada laga qabo in xukuumaddani ay ka dhabayso ballantaasi. Balse waxaan rajaynaynaa in Xasan Sheikh uu bilaabo inuu xukuumaddiisa u dhaqaajiyo jihada saxda ah. 2 arrin ayaa uga furan dowladdani dhinaca Al-Shabaab. 1. In ay la heshiiyaan, taasina waxay u baahan tahay tanaasul badan dhinaca dowladda, laakiin waxaa shaki ku jira in Al-Shabaab ay rabaan heshiis. Waddada kale ee u furan dowladda ayaa ah la dagaalanka Al-Shabaab, taasina ma fududaan doonto, mana gaabnaan doonto. Sida ay muujinayso 15 sano ee lasoo dhaafay ee ay dowladihii hore isku dayeen in ay hadafkaas ka midho dhaliyaan. Madaxweyne Xasan khudbadiisa wuxuu ku sheegay in dowladdu ay dooratay la dagaalanka Al-Shabaab. Ciribtirka Al-Shabaab ma ahan shaqo ku dhammaan karta hal muddo xileed, laakiin waxay u baahan tahay ugu yaraan 3 muddo xileed oo isku xigta, ama haddii si kale loo dhigo ugu yaraan 12 sano. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku soo bandhigin wax xeelado ah oo lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Waxaan isku dayi doonaa inaan soo bandhigno sida ugu wanaagsan uguna macquulsan ee lagu gaari karo yoolkaas. Istaraatiijiyada ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo Al-Shabaab waa istaraatiijiyad 3 dhinac leh. 1. Burburinta ilaha dhaqaale. 2. La dagaalanka fikirka gaaleenta. iyo 3. Dagaal toos ah. 3 dhinac oo loo baahan yahay in si wadajir ah loo isticmaalo waxaan ku sharxi doonaa muuqaalkan. Saldhigga istaraatiijiyadani waa burburinta ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab. Si loo xaqiijiyo, dowladdu waxay u baahan tahay hay'ado sirdoon oo karti leh. Hay'adaha sirdoonku waxaa looga fadhiyaa in ay la dagaalamaan cashuur ururinta Al-Shabaab ee magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan Muqdisho, iyo xog ururinta. Canshuurta laga qaado magaalooyinka waa isha ugu weyn ee dakhliga Al-Shabaab. Isha dhaqaale ee labaad waa canshuurta laga qaado ganacsiga dhuxusha ee laga soo saaro jubbooyinka. Si aan taas u joojino, waxaan u baahanahay inaan joojino ka ganacsiga dhuxusha sharci darrada ah ee ka baxa dekedda Kismaayo.
burburinta ama joojinta ilaha dhaqaale ee Al-shabaab waxay hoos u dhigi doontaa awooddooda. Dhinaca labaad ee istaraatiijiyadani oo ah la dagaalanka fikirka gaaleenta ee Al-shabaab aaminsan tahay, taasi waxay joojin doontaa oo xadidaysaa awoodda ay u leeyihiin in ay xagjireeyaan ama qortaan dhalinyarada, iyo sidoo kale waxay caawinaysaa kuwa ku jira Al-shabaab oo u malaynayay inay ku sugan yihiin dariiqa saxda ah si ay uga baxaan. Qodobkani waa shaqada aan uga baahannahay culimmadeena iyo wadaadadana. Waxaana looga baahan yahay dowladda in ay dhiirigeliso oo ay fariintooda gaarsiiso dhammaan dadka Soomaaliyeed ku nool gudaha iyo dibadda Soomaaliya. Dhinaca saddexaad ee istaraatiijiyadani waa in si toos ah loola dagaalamo oo lagala wareego gacantooda magaalooyinka iyo tuulooyinka ay hadda iyaga gacanta ku hayaan. Dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa daawashada, waxaana rajaynayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in maalin dhow aan aragno dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah. Aamiin.